wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala oo goordha warbaahinta la hadla ayaa sheegay in is-hortaag lagu sameeyay go'aankii ay qaateen guddigii loo xil saaray inay baaraan gafkii iyo magacdilkii loo geystay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in kooxo abaabulan ay ka dambeeyaan magacdilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay in guddiga ay la kulmeen cadaadis badan oo ka dhan ah hooshii ay hayeen. Al-Cadaala waxa uu caddeeyey in dacaayadaha ka dhanka ah Maxamed Xuseen Rooble ay ka dhasheen tallaabooyinkii uu qaaday sidii lagu sixi lahaa qaladaadka ka jira doorashada Soomaaliya, gaar ahaan go'aankii uu ka qaatay guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey wajahaya mawjado fadeexada ah. inkastoo uusan wasiir Al-Cadaala shaacin kooxda ama shakhsiyaadka ka dambeeyo is-hortaaggii lagu sameeyey natiijada guddigii jenaraalada ahaa iyo magacdilkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa haddana xoge aan helna waxay caddaynayaan in tallaabooyinkan ay qaadeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya, waxaana qayb ka ahaa taliyaha ciidamada militariga Jenaraal Oduwaye Yuusuf Raage. sidii aan hore ugu sheegnay warbixinteennii maanta, xogtu waxay tilmaamaysaa in taliyaha militariga Soomaaliya uu diiday natiijadii ay la wadaageen guddigii uu magacaabay, isagoo ka amar qaadanaya madaxweyne Farmaajo iyo saraakiil kale oo ku dhow xafiiska madaxweynaha. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala waxa uu caddeeyey inay jirto koox abaabulan oo rabto dib u dhaca iyo boobka doorashada Soomaaliya, isagoo sheegay in wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya uu u digay qof kasta oo isku dayda qalqalgelinta amniga dalka iyo doorashooyinka Soomaaliya. waxa uu sheegay in saraakiisha ciidanka iyo hay'adaha dawladda ee ku milma arrimaha siyaasadda laga qaadi doono tallaabooyin isugu jira ciqaab iyo go'aan. waxa uuna digniin u diray taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya Jenaraal Oduwaye Yuusuf Raage sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. dhinaca kale, xubno ka mida guddiga doorashada ee heer federaal ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyaha guddiga FID Maxamed Xasan Cirro. guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo warbaahinta la hadlay galabta ayaa sheegay in guddoomiye Cirro oo ku milmay arrimaha siyaasadda inuusan la tashan xubnaha kale ee guddiga iyo inuu sameeyo ku tagrifal awoodeed iyo sidoo kale inuu geystay qaladaad kale oo gudaha doorashada ah. sidaasi darteedna ay xubnaha guddiga go'aansadeen in ay fadhiistaan kadibna ay ka qaadaan xilkii guddoomiyenimo. maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad u xoogganaa guuxa ka dhex jira xubnaha guddiga doorashada oo ah inuu socday abaabul mooshin oo ka dhan ah guddoomiye Maxamed Xasan Cirro oo hore u qaaday tallaabooyin badan isagoo lagu tiriyo shakhsiyaadka aadka ugu dhow villa Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo. tani ayaa caddeen u ah in guddiyadii doorashada ee xallinta khilaafaadka iyo kan maamulka doorashada ee FID ay dhexdooda ka jiraan mawjado culus oo mid ka mida uu saameeyey khilaaf gudihiisa ah, halka kan xallinta khilaafaadkana uu wajahayo fadeexado waaweyn oo dhinaca cadaalad falka ah. geeska kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaankii tobanaad ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta si dadban u caddeeyey inay sii joogi doonaan xafiisyada dalka looga arrimiyo, taasoo ka dhigan muddo korarsi kale oo cusub. Farmaajo iyo Mursal waxay maanta xafladda dabaaldegga booliiska Soomaaliyeed ka sheegeen in heshiiskii 17 bishii Sebteembar qodobkiisa 3 uu dhigayay in hay'adaha dawladda ay sii jiri doonaan siina shaqaynayaan ilaa laga helo kuwa kale oo beddela, iyadoo ay xusid mudan tahay in la doortay xubno cusub oo ka mida baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, halka qaarkood xildhibaanadii hore ay joogeen ay ku guuldareysteen inay dib ugu soo laabtaan kuraastii ay ku fadhiyeen. Mursal waxa uu sheegay in heshiiskii doorashada Soomaaliya ee 17 Sebteembar uu dhigayay inuu ahaa heshiis doorasho oo ku eg 2020-2021, haddana maalmo kadib la geli doono 2022. saasi darteedna aysan suurtagal ahayn in dalka uu ku yimaado firaaq dastuuri ah, hay'adaha dawladdana ay sii shaqeeyaan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dhankiisu sheegay inuu ka digayo wax ka beddel lagu sameeyo heshiiska doorashada Soomaaliya ee 17 Sebteembar, xilli la filayo in toddobaadka magaalada Muqdisho ay ku kulmaan golaha wadatashiga qaran. xubno ka mida siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in hadalkii maanta ee guddoomiye Mursal iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u dhignaa muddo korarsi cusub oo dadban.